gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo maanta shir gudoomiyay kulan ay baarlamaanka Soomaaliya ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa wuxuu ka hadlay go'aankii dawladda Mareykanku ay magaalada Qudus ee dhulka barakeysan ugu aqoonsatay inay tahay caasimadda Israa'iil. Gudoomiye Jawaari waxa uu sheegay in go'aanka Mareykanku uu qaatay ay weeqayso kalsoonidii lagu qabay in Mareykanku oo dhexdhexaadiyo wada hadallada lagu doonayo in lagu xalliyo qadiyadda Israa'iil iyo Falastiin. Mr. Jawaari waxa kaloo uu sheegay in go'aankaasi uu yahay mid qatar ku ah guud ahaan caalamka gaar ahaan bariga dhexe. si aan u cabirno rabitaanka shacbiga ee Soomaaliyeed oo aqoonta ku metelno wada maarmaan wada waajib hase yeeshee go'aankani waxaan u arkaa in dawladda Mareykanka ay go'aankan halis ku yahay heshiiskii nabadda lagu raadinayay oo markaa halis ku yahay doorkii laga raadinayay in laga xajiyo Israa'iil iyo Falastiin oo halis ku noqonayo وكلها هرس فيها قبل قادم سياسة كل كاسر أمنيسي هي حسيلون السياسة في سنة عنكم فيها من هرس وعقيا وحكروا بأركا إن خاص بغيرها هذا غيرها منها وحكروا بأركا إن أهل كريم وعنك سوء هذا إنه خاص بغيرها كرسوني الوقبي دولة الملايكة إن أهل مشوا حالتي نبضان كأها قالوا نحن حالي فلسطين وإسرائيل. ugu dambeyntii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka ka codsaday inay si degdeg ah ku soo diyaariyaan qaraar baarlamaanku uu ka qaato arrinta Mareykanka ugu aqoonsaday magaalada Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil. waxaan u dambeyntii soo jeedinayaa haddii aad la qoraataan in guddiga arrimaha dibadda ay saaraan inay noo soo diyaariyaan qaraar arrimaha ku saabsan oo ay noo soo habeeyeen ka bacdi waxaan ka doonno halkan ka soo saarnay qaraar aan sameeyo. Axmed Saciid Axmed telefishinka Cable